waxaan rabaa inaan ka hadlo why aan u doortay inaan ka sawiro positive side ka Muqdisho aan soo post gareeyo kuna soo post gareeyo social media waxa ugu horeeya oo igu qasbay waxa waaye adduunku wuxuu aaminsan yahay Soomaaliya inay tahay wadan gaajo iyo faqri astaantiisu tahay adduunku wuxuu aaminsan yahay Soomaaliya inay tahay wadan burcadbadeed astaantiisu tahay adduunku wuxuu aaminsan yahay Soomaaliya inay tahay wadan isdilka iyo isdhaca astaantiisu tahay waan fikiray waxa isweydiiyay why adduunka uu aaminay sidaas maadaama uu arkayno maanta Muqdisho inuu ka jiro horumar aad u weyn waxa isweydiiyay why always wariyaasha caalamka intay soo baxaan inta soo kilometer u soo jaraan ee Muqdisho imaadaan to say Muqdisho is the most dangerous city in the world so waan fikiray waxa ogaaday haddii ay wariyaasha ay sameeyeen Muqdisho is the most dangerous city in the world aniga adduunka inaad soo Muqdisho is the most beautiful city in the world mana yaabin wariyaha markuu xamar imaanayo maxaa yeelay marka uu sawiraayo dad la dilaayo dad la dhacaayo dad si ah wuxuu helayaa lacag so aniga anoona lacag raadinaynin in aan sharafta wadankayga soo celiyo ayaan go'aan ku gaaray This is Mogadishu dhismayaasha dawladda oo dib loo soo celiyay maxaa lahaa guryaha waaweynaa ee dawladda oo dib loo soo celiyay kaalmihii shidaalka oo dib loo soo celiyay suuqyadii magaalada oo nolosha marnaba istaagin oo nolosha sidii u socoto This is wadooyinka oo dib loo dhisay This is waxa waaye nolosha ka jirta Lido Beach qof walba oo Soomaali ah uu dareemi karaa ahmiyadda ay u leedahay Lido Beach especially dadka Muqdisho ku nool maxaa yeelay Soomaalida kale adduunka joogto markii dib uu la soo gudboonaado ama wax yar oo xaraj ay arkaan waxay haystaan biijid kale ee tagaan si ay energy u soo qaataan but reer Muqdisho meena helin inta soo sano waxay iskaga bixiyaan mashaakisha iyo dhibaatooyinka la soo gudboonaaday 2012 ka ayaan bilaabay aniga inaan wax sawiro sawiradii ugu horeeyay aan qaaday waxa kamid ahaa sawirkan waxaana aad ugu farxay oo encouragement fiican ee noqday sawirkan inuu ka mid noqday sawirada ugu qurux badan ee laga soo qaado magaalooyinka adduunka ugu halista badan sida adduunka ay ku tilmaamaan 2013 kii la qaatay markaas waxa la dhahay Soomaaliya Muqdisho waxa waaye wadanka magaalada labaad ee ugu halista badan The Guardian sawirkan soo qaadatay ayadana waxay noqotay encouragement fiican This is what image ka Muqdisho aniga aan uga jeedo waxaan u daayay wariyaasha in ay sawiraan iyo dadka kale Soomaaliya imaanayaan ee rabaan news ka bas in ay gudbiyaan image ka khaldan ee Soomaaliya ama negative side ka ee Muqdisho but ani waxaan doortay this image inaan tuso adduunka dadka Muqdisho ku nool sometimes rajadooda iyo hoobka ay nolosha ay ka qabaan hoos ay u dhacdaa laakiin sida ay qoraxda u dhacdo qof walba oo naga mid ah uu arki karaa inta qoraxa ka dhacayso laakiin qorax ma u jeedo qof walba wuxuu aaminsan yahay inay hadda qoraxda dhacayso laakiin tomorrow ay soo bixi doonto qoraxda dadka Muqdisho rajada ay ku nool yihiin it is just like that waxay maanta dib ku dhacaayo maanta dib ayaa la soo gudboonaanayo laakiin waxay hubaan bari dibkii inay ka soo qabsanayaan waligood nolosha hoob rajada ay ka qabaan kamaanto sida qof walba uu hubo bari inay qoraxda soo baxayso Muqdisho nolosha ka jirta waligeed meena istaagin ilmaha iskuulada ay dhigtaan ardayda dadka kale jaamacadaha ay dhigtaan suuqyada waa laga ganacsadaa dadkeena xoolaha qaal raaco qaar beeraha faraan kulli jawaanibta kala duwan ee nolosha one day ma istaagin nolosha way socotay sidaas daraadeed ayaa sometimes markii wax soo post gareenayo oo kale Facebook oo Twitter oo Instagram waxa soo qaadaa hal sawir waxa ku qoraa oo kaliya watastamir alxayaa nolosha way sii soconaysaa marnaba Muqdisho nolosha ma istaagto maalin aniga oo ka soo baxay shaqada ayaa waxaan jidka kula kulmay ilmaha yaryarka ciyaalka yaryar waxay degan yihiin guryahooda wuxuu ka sameeysan yahay buushash nolosha ay ku sugan yihiin xogaa waa nolol adag laakiin waxay go'aansadeen noloshaas inaynan u istaagin ay sii wataan noloshooda waxaan weydiiyay ayaga oo noloshaas ku nool why ay inta subaxii soo baxaan uniform oo isu xirtaan ee u imaanayaan iskuulka mid kamid ah ilmahan ayaa wuxuu igu jawaabay ma rabno sida ciyaalka qaar inaan noqono kuwa darbiyada jiifo waxaan rabnaa waxbarashadeena inaan la tartamno oo la mid noqono ilmaha adduunka so waxay ku dhiirigelisay inaan sawirkaas ka qaado حكيمة الله جبدان وجبر يرأس قاعد 8 جرأة
waxaan ku arkay anigoo u sii socda afgooye si aan sawiraan uga soo qaado xakiima mayna helin qof daryeela laakiin waxay go'aansatay nolosha inaynan u istaagin cimrigeeda intee nooshahay inay ka faa'iideysato waxay ugu tiri ari raacan aan raaco maanta waan ku qanacsanahay laakiin bari kuma qanci doono oo waxaan rajeynayaa magaalada inaan soo galo oo aan ka faa'iideysto awoodda ilaahay siiyey aan wax barto mustaqbalka dhow waxay rajeynaysaa dhakhtarad ilmaha daaweysa inay noqoto ninkan wuxuu ka shaqeeyaa beeraha afgooye wuxuu ka fiican yahay rag badan oo Soomaaliyeed oo Muqdisho jooga ama gobolada magaalada jooga oo qori qaatay oo go'aan ku gaaray inay dadka dilaan la dagaalamaan asaga wuxuu go'aan ku gaaray inuu ka faa'iideysto awoodiisa babaygan ayuu aruuriyaa suuqyada magaalada ayuu geeyaa uu soo gadaa si masaariifta uga soo baxday ciyaalkiisa iyo familigiisa uu maxaa lahaa ugu beelo buu diiday inuu ka mid noqdo dadka qoriga qaatay ee magaalada dhibka ku wado this young boy waxaa lahaa Yaxya waxaan kula kulmay mid kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho cunugan sida uu u fikiraayo am sure dad badan oo naga mid ah ma u fikiraan cunugan waa u sheekeeyay markaas wuxuu ugu dhahay habar yar sheekooyin badan ah heesaa anigana sheekooyinka waan jeclahay soo waxaan rabaa inaan iraacdid caawa oo ila soo seexatid si aan wax badan kaaga faa'iido then waxaa dhahay habar yar adiga iraac si aan wax badan adigana kaaga soo faa'iido wuxuu ugu dhahay ma ku raaci karo maxaa yeelay hooyaday ani kaligay ay dhashay aabahay wuu ka tagay marka haddii aniga hooyaday amaanta ka tago dad qalatada hooyaday cunayso soo ilmaha yarna waa ognahay waxa ugu weyn ay ka cabsadaan waxaa waaye wax maxaa la mala awaaleen dad qalato wuxuu ku fikirayaa asagoo intaas la eg mas'uuliyadda familigiisa inuu qaado hooyadiis inuu asaga mas'uul u ka yahay so waxa weydii mustaqbalka wuxuu rabaa inuu noqdo wuxuu ugu dhahay waxaan rabaa inaan noqdo engineer ka qayb qaato dib u dhiska dalka waxaan rabaa inuu dhahay first inaan anfaco hooyaday then Muqdisho then Soomaaliya oo dhan magaalada Muqdisho marka aad maraysid waxa arkaysaa waxyaabo ku soo jiidanaya adigoo ugu talagalin hadana waxa arkay wax yar oo dhibaato marka dareentid hadana another thing oo rajada kugu soo celinayo ciyaalkan yar-yarka qof walba oo fiiriya akiid wuxuu dareemayaa farxad so waxay joogeen daldirka daahsoon waxay iga dalbadeen inaan sawir ka qaado oo adduunka aan la wadaago nolosha ay ku sugan yihiin waa nolol shooye iska adag laakiin marnaba noloshooda rajada kama dhimato sidoo kale cunugan yarka ari ka dhumay ayuu raadinayay waxaan soo sawiray anigoo jaziira ka imaaday waxa aad ii cajabisay ismaal grantiisa ariyo iska wataa laakiin ma u jeedo noloshaas wuxuu diiday in uu nolosha maxaa lahaa u joogsado uu iska faraxsan yahay uu iska qoslayaa jasla inay waxba ka maqneen oo kaleeto waxaan rabaa inaan u jeediyo one message dhalinyarada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool waxaan rabaa inaan dhaho this is our Muqdisho anaga Muqdisho hadaa maanta imagekeeda fiican hadaana soo gudbinin qof soo gudbinaya ma jirto haddii aan isku tagno awoodeena aamudeeno waxaan hubaa awoodeena haddaan mideeno oo aan isku tagno oo aan ka hor tagno image ka dhahayo Muqdisho is the most dangerous city in the world I'm sure waa sameyn karnaa so let us isku tagno awoodeena aan beerino si aan u soo bixino Muqdisho dhinaceeda fiican waana ognahay 2013 markii la fiiriyo 2014 farqiga weyn ee u dhaxeeya Muqdisho waxaana soo martay xilli habeenkii qarax uu dhacayo listuqeenayo subaxina imtixaankeena aan galeeno saasaan u soo adkaysanay soo inaa ilaahay ku mahadino oo dadkii waxaan sameeyay aan maxaa lahaa uga mahad celino tusno adduunka inay Soomaaliya isbedeshay Muqdisho isbedesho maxaa noo diidayo haddii adinka aad sameyn weysiin there is no one else oo sameynay I'm sure waxaan hiigsanayo waxaan hiigsanayo qof walba oo idin kamid ah Soomaaliya ha search gareeyo Google ha galiyo maxaa u soo baxayo wax la dilay wax dhiig ka daadanayo dad baahi heeso waxaas u soo baxayo near future waxaa rabaa inaan arko Muqdisho markii la raadiyo in ay soo baxdo image ifaayo aad ugu mahadsantihiin